kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada Wajawa Media halkaad ka helaysaan warar sugan xogo sax ah iyo falanqeyn qiimo badan anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Wajawa waxaan idin soo gudbinayaa maanta qodobadii ugu door corona warkeena caalamka iyo dalka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maamulka waqooyi bari oo digniin culus u diray Puntland maxay isku hayaan labadan maamul degmooyinka lagu qabanayo doorashada dowlad goboleedyada oo la shaaciyay Soomaaliya oo qarka u saaran macluul ka daran tii 2011 iyo baaq degdeg ah oo loo diray beesha caalamka in ka badan 4 milyan oo Soomaali oo u baahan gurmad degdeg ah xilli roobabkii la waayay xoolihiina ay dhamaadeen sidoo kale waxaad wararkeeni ku maqli doontaan Somaliland oo gacanta ku dhigtay koox amni daro ka waday Hargeysa iyo wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo eedeyn u jeediyay Villa Soomaaliya Mexico dalxiisayaal ku go'doonsan hoteelada iyo kooxaha muqaadaraadka oo gubaya magaalooyinka kadib dilkii hogaamiyooda dalxiiskii ayaa isu bedelay cabsi iyo malaayiin dollar oo ku dhaxluntay qalalaasahaasi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan u diyaar garoowa barnaamijkeeni oo dhameystiran rabtaa inaad la jaanqaado xawaaraha dunida tiknoolajiyada baraadinaysa qalab tayo leh oo aad isku haleyn karto haddaba ku soo dhawow hadaf technology halkan waxaan kugu diyaarinay laptopsyo tayo leh mobilada ugu casrisan oo ila jiraan agabkooda shaashadaha waaweyn iyo dhammaan qalabka IT-ga aad ugu baahan tahay shaqadaada iyo gurigaagaba haddii aad tahay qof ku jira saaxadda warbaahinta gaar ahaan baraha bulshadu waxaan ku haynaa mikrofoono iyo qalabka studio-da oo dhameystiran agab kasta oo IT-ya wixii qalab aad ugu baahato xafiis ama guri tayo caalami ah adeeg la isku haleyn karo iyo qiimo kugu habboon waa halka aad kaga iibsan karto qalabka electronics-ka hadaf technology xarunteenu waa Baydhabo agaarka Shaneem Shantraal la sugin maanta na soo booqo hadaf technology hirka tiknoolajiyada mustaqbalka hadafkeenu waa inaan kugu xirno mustaqbalka tiknoolajiyada nagala soo xiriir taleefanada shaashadaha kaaga muuqda ayna ku bilownay sida hordhacaad ku maqleyseen maamulka waqooyi bari oo digniin culus u diray Puntland maamulada waqooyi bari iyo Puntland oo qarka u saaran inay isfarsaaraan iyadoo dowladda federaalka doonayso inay ku qabato doorasho dadweyne deegaanadaasi xiisad siyaasadeed ayaa ka dhex qaraxday maamulada Puntland iyo waqooyi bari kadib markii ay Puntland si cad uga hortimid qorshe ay sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku doonayso inay doorasho ugu qabato deegaano ka tirsan waqooyi bari arrintan ayaa si degdeg ah u kicisay muran siyaasadeed hanjabaado iyo cabsi laga qabo in xiisaddu ay isu beddesho isku horimaad hubaysan oo dhexmara labada maamul Puntland ayaa ku adkaysatay in Sool iyo Sanaag ay ka mid yihiin dhulkeeda dastuuriga ah isla markaana lagu qaban karin wax doorasho oo ogolaansho laga haysan Garowe wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa ku dooday in dastuurkoodii weli si rasmi ah uga mid yihiin goboladaasi sidaa daraaddeed aysan jirin cid kale oo sharci u leh inay ka hirgeliso doorasho gaar ahaan midda u janjeerta Villa Soomaaliya dhanka kale maamulka waqooyi bari oo xaruntiisi tahay Laascaanood ayaa si kulul ugu jawaabay hadalka Puntland iyagoo ku eedeeyay fargelin toos ah iyo isku day lagu weeqayo jiritaanka maamulkooda wasaaradda arrimaha gudaha waqooyi bari oo ka jawaabaysa hadalka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa fariin adag u dirtay Saciid Deni iyadoo u caddaysay in deegaanadaasi ay ka tirsan yihiin waqooyi bari isla markaana aysan aqbali doonin wax sheegasho ah oo ka timaada Garowe Puntland ayaa gebi ahaanba aqoonsanayn maamulka waqooyi bari waxayna ku tilmaantaa midaan sharci haysan halka waqooyi bari ay ku doodo inay ku timid rabitaanka shacabka deegaanadaasi kadib kacdoonkii hubaysanaa ee dadka deegaanka Somaliland ay kaga saareen Laascaanood waxaana sidaas awgeeda khilaafkan maahan mid ku kooban arrin doorasho oo keliya balse waa mid salka ku haya loolan dhuleed sharciyad siyaasadeed cidda leh matalaadda dhabta ee bulshada ku dhaqan Sool iyo Sanaag xiisadan cusub ayaa timid xilli dowladda federaalka Soomaaliya ay ku howlan tahay qorshaha doorashooyin qof iyo cod oo la doonayo in dalka laga hirgeliyo qorshahaasi oo horey uga hor yimaadeen qaar ka mid ah maamulada dalka gaar ahaan Puntland iyo Jubaland haddii ay Villa Soomaaliya isku daydo in doorasho ka qabato deegaanada muranka uu ku taagan yahay waxaa suuragal ah baa la yiri
in tillaabadaasi ay kiciso fargelin degdega oo ka timaada Puntland, taasi oo horseedi karta isku dhac siyaasadeed, mid amni, sida ay qabaan dadka arrimaha siyaasadda ka faalooda. Warar hoose aan helay ayaa sheegaya in Puntland ay kordhisay dhaqdhaqaaqa ciidamada ee ku sugan soohimaha ay la wadaagto waqooyi bari, inkastoo aanay jirin war rasmi ah oo xaqiijinaya isku diyaarin dagaal. Sidoo kale, waqooyi bari ayaa la sheegay inay wado abaabul bulsho iyo mid amni si ay uga hortagto waxa ay ku tilmaantay fargelin qaawan oo Saciid Deni uu ku hayo deegaano nabdoon. Arrintan Galdogob ayaa sii horinaysa dagaalka maadaama degmadaasi ay ku taalo xuduud istiraatiijiyad ah oo xiriirisa deegaanada Puntland iyo Galmudug. Puntland ayaa u aragta Galdogob inay si buuxda uga mid tahay maamulkeeda, halka dowladda federaalku ay ku doodeyso inay xaq u leedahay inay doorasho ku qabato meel kasta oo ka mid ah dhulka jamhuuriyadda. Cabsi weyn ayaa laga muujinayaa in hadallada kulkulul iyo mowqifyada isdiidan ay u gudbaan heer ficil ah, gaar ahaan haddii ciidamada la iska hor fadhiisiyo deegaanada xasaasiga ah. Bulshada ku nool Sool iyo Sanaag ayaa ah kuwa u nugul saameynta khilaafka, maadaama horey u soo mareen dagaalo iyo barakac badan. Khilaafkan ayaa ah mid iftiiminaya nuglaanta nidaamka federaalka Soomaaliya, iyadoo weli si cad aan loo qeexin xuduudaha iyo awoodaha maamulada. Dastuurka ku-meelgaarka ee dalka ayaa ka tegay arrimo badan oo u baahan heshiis siyaasadeed, balse heshiiskaasi weli ma dhicin. Taasi ayaa sababtay in mar kasta oo ay timaada arrin doorasho ah ama awood qaybsi la xiriirta uu dib u soo laabto muran la mid ah kan hadda taagan. Degmooyinka lagu qabanayo doorashada dowlad goboleedyada oo la shaaciyay. Guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohidmaha ayaa faray ururada siyaasadda ee diiwaan gashan inay bilaabaan ololaha doorashooyinka golayaasha deegaanka, isla markaana ay soo gudbiyaan liiskoodii kama dambaysta ee musharaxiinta, taasi oo muujinaysa bilowga hirgelinta nidaamka doorashada tooska ah ee dowladaha hoose ee dowlad goboleedyada. Guddigu wuxuu sheegay inuu soo gabagabeeyey dhammaan howlihii diyaargarowga doorashooyinka ee ka socday Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug iyo Waqooyi Bari. Guddiga ayaa si rasmi ah ugu wargeliyey dhammaan howlihii la xiriiray diyaarinta iyo xaqiijinta hanaanka doorashooyinka dowladaha hoose ee lasoo gabagabeeyey, ayaa lagu yiri qoraal uu guddiga soo saaray. Degmooyinka loo asteeyay ee doorashooyinka ka dhici doonaan ayaa kala ah Koonfur Galbeed, Baydhabo, Baraawe, Marka, Afgooye, Wallaweyn, Buur-Hakaba, Waajid, Bardaale, Qansax Dheere iyo Diisoor. Hirshabelle, Jowhar, Beledweyne, Matabaan, Warshiiq, Cadalle, Buuliburte, Jalalaqsi, Balcad iyo Mahdaay. Galmudug, Dhuusamareeb, Gaalkacyo, Hobyo, Balambale, Cadaado, Caabudwaaq, Xiraale, Ceeldheer, Xarardheer, Gurceel iyo Masagawaay. Galcad, Waqooyi Bari, Laascaanood, Xudun, Taleex iyo Buuhoodle. Guddiga wuxuu ugu baaqayaa dhammaan ururada siyaasaddu inay u hoggaansamaan shuruucda doorashada si loo xaqiijiyo hufnaan, isla xisaabtan iyo tartan cadaalad ayaa lagu yiri. Tilaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha dowladda ee lagu hirgelinayo nidaamka qof iyo cod, si tartiib tartiib ah loogu guurayo nidaamka dadban ee ku saleysan awood qaybsiga qabiilka ee muddo dheerka ka jiray siyaasadda dalka. Soomaaliya oo qarka u saaran macluul ka daran tii 2011 iyo baaq degdeg ah oo loo diray beesha caalamka. In ka badan 4 milyan oo Soomaali ah oo u baahan gurmad degdeg ah xilli roobabkii la waayay, xoolihiina ay dhammaadeen. Dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqeen in Soomaaliya ay gashay xaalad macluul daran, iyadoo ay jiraan warar sheegaya inay dadku bilaabeen inay u geeriyoodaan abaarta ba'an ee ka jirta dalka. Abaarta ka jirta Soomaaliya ayaa lagu tilmaamay tii ugu xumeed tan iyo musiibadii 2011, iyadoo malaayiin qof ay maanta u baahan yihiin gargaar degdeg ah oo naf badbaadin ah. Roobabkii oo aan diin sanadkan, dalagyadii oo baaba'ay iyo xoolihii oo baaba'aya ayaa sababay in qoysas badan ay wajahaan cunto yari iyo biyo la'aan ba'san, halka carruur badani ay la ildaran yihiin nafaqo daro halis ah, walow meelaha qaar la sheegay inay jiraan dad haraad iyo gaajo u dhintay. Barnaamijka Cuntada Adduunka WFP, UNICEF, OCHA, FAO iyo hay'ado kale ah oo samafal ayaa si wadajir ah uga digaya in xaaladdu si degdeg ah uga sii dari karto haddii aan la helin maalgelin cusub iyo gurmad ballaaran.
waxay sheegeen in tirada dadka u baahan caawintu ay kor u kacday 4 milyan oo qof halka awooddii gargaarku hoos u dhacday taasoo u abuuraysa farqi halisa u dhexeeya baahida iyo wax la heli karo. hay-adahan waxay ku adkeeyeen in Soomaaliya ay mar kale u sii siiqayso heer khatar ah u dhow macluul rasmi ah haddii aan si degdeg ah loo kordhin taageerada bini'aadamnimo. waxay ugu baaqeen beesha caalamka inaysan indhaha ka laaban dhibaatada taagan islamarkaana la badbaadiyo nolosha malaayiinta nugul ka hor intaanay xaaladdu isu bedelin masiibo kasii darta tii 2011. maamulka Somaliland oo gacanta ku dhigay koox amni daro ku waday Hargeysa iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo eedeyn u jeediyey villa Soomaaliya. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland Cabdalla Maxamed Carab oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda ee magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xaaladda amni ee deegaanada Somaliland. wasiirka ayaa sheegay inay qabteen shabakad isku xiran oo qalqalgelinaysa amniga gudaha Somaliland kuwaasi oo horjoogay ay ka yihiin dad u dhashay Somaliland. wuxuuna intaasi ku daray in kuwo ka mid ah ay baaritaan ay ku socdaan lana horgeyn doono laamaha garsoorka. wasiirka ayaa ku eedeeyey maalgelinta kooxahaasi hogaamiyaasha dowladda federaalka isagoona madaxdu ku eedeeyey qalqalgelinta amniga. ciidamada ammaanka ayuu ku bogaadiyey fashilinta iyo siday u qabteen. ugu dambeyntii, Mexico dalxiisayaal ku goodoonsan hoteelada iyo kooxaha muqaadaraadka oo gubaya magaalooyinka kadib dilkii hogaamiyahooda. dalxiiska ayaa isku bedelay cabsi iyo malaayiin dollar oo ku dhex lunta qalalaasahaasi. dalxiisayaal ka kala yimid daafaha dunida ayaa ku xaniban qolalkooda hoteelada ku yaala Mexico kadib markii kooxaha muqaadaraadku ay bilaabeen weeraro inay gubaan goobaha iyo gaadiidka ganacsi ee ku yaala aagga dalxiiska iyagoo ka argudsanaya dilkii hogaamiyahoodii ugu doonista badnaa. maamulka Mexico ayaa kordhiyey ciidanka amniga si loo xakameeyo xaaladda, balse qalalaasaha ayaa si toos ah u saameeyey dalxiiska iyo dhaqdhaqaaqa safarada caalamiga ah. qodobkaas ayaa u dambeeyey wararkii aad kala socoteen waa Jaba Media. guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. fadlan la wadaag saaxiibadaada barnaamijkan si ay iyaguna kula dhageystaan. intaynu warkan war la mid ah dib u kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.